dowladda dalka Turkiga madaxeeda guud ee difaaca warshadaha ayaa markii ugu horeysay ka sanqariyay arrin kale oo mar kale u jeexaysa dhaba cusub oo dhinaca horumarka qalabka iyo istaraatiijiyadda dalka Turkiga kadib markay u muuqatay in kolkii ugu horeysay dowladda dalkaasi Turkiga ay ku guuleysatay nidaam difaac oo heer sare ah oo horey ay garka uga haysay isla markaana ay uga tugtuugi jirtay dowladda dalka Mareykanka. arrintan waxay noqonaysaa tallaabo ka mid ah kuwii ugu xooganaa ee waqtigan casriga ah ee Turkiga guul ahaan ugu soo hoyata gaar ahaan ay ka gaadhaan dhinaca tiknoolajiyadda iyo hardankooda ay ugu jiraan in ay dalalka reer galbeedka uga maarmaan mar walba baahidooda dhinaca military oo ku qaadata waqti aad u badan iyo dhaqaale xoogan. kolka hore daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii warwareyn oo mar kale aad ku maqli doontaan qodob kale oo xiisad badan leh oo ku saabsan shirkadda difaaca dalka Turkiga ee Aselsan. war qoraal ah oo daabacay mid kamid ah wargeysyada qaadaadhiga arrimaha difaaca dalkaasi Turkiga ee loo yaqaan The Defense Post ayaa waxa uu sheegay isla markaana uu ku dhawaaqay in dowladda dalka Turkiga ay guul la yaab leh ka soo hoysay kolkay si rasmi ah ugu guuleysatay ogana gungaadhay isku day ay sameynayeen qaar kamid ah khibradeeda dhinaca tiknoolajiyadda oo iyagu marka ka dambaysa kordhinaya awoodda wax soo saar ee shirkadooda dhinaca gantaalaha agabka tiknoolajiyadda diyaaradaha iyo raadarada ee Aselsan. raadar ayaa la sheegay inuu noqon doono midkii ugu horeeyay uguna ballaadhnaa ee lagu rakabi karo diyaaradaha F-16 ee dalka Mareykanka ay goor hore ka iibsadeen sidoo kalena uu noqon doono hordeg diyaaradaha cusub ee dalka Mareykanka looga maarmi doono baahidiisa ee Turkigu ugu wanqalay Turkish Fighter Experimental. diyaaradahani waa kuwo ay dowladda dalka Turkiga iyo xeelarayaasheeda dhinaca engineering-ka iyo horumarinta agabka ciidan ay doonayaan inay uga argutaan kadib markii dowladda Mareykanku ay ku cururqaysatay isla markaana si xun ugu gashay diyaaradaha la wada calmaday dhawaana laga iibiyay dowladda Israa'iil badankoodana loo daabulay F-35. dowladda dalka Turkiga ayaa dhawaan waxay kala qoodreynaysaa inay kordhiso bal ugu yaraan diyaaradaha goorsii horeysay ee dowladda Mareykanku ay u ogolaatay F-16 oo 40 horle ay dalbatay taasoo ay ka daba wareejinayaan wali siyaasiyiinta culculus ee dalka Mareykanka ugu horeeya madaxweyne Joe Biden oo isagu sheegaya in la weydiin doono aqalka Congress. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlayay xalay ayaa sheegay in dowladdiisu ay quudareysay in labada aqal ee Congress ee dalka Mareykanka ee Senate iyo aqalka hoose ay aqlabiyadooda heli lahaayeen kuwa jamhuuriga kuwaas oo gaar ahaan u dabacsan mabda fiican iyo ra'yi wanaagsan ka qaba ayuu yiri kolkay noqoto in Turkiga laga iibiyo qalab. waxay arrintaas u muuqataa mid aan dhaboowin isla markaana niyad-jab culus ku noqon doonta xukuumadda Ankara iyo waliba dowladda dalkaasi Turkiga. haatan warkan wanaagsan waxa weeye shirkadda Aselsan oo iyadu markii ugu horeysay u muuqata in ay sameysay daahfur la yaab leh madaxa guud ee shirkadda dhinaca difaaca loo yaqaan warshadaha hubka Ismaaciil Damari ayaa waxa uu yiri tani waxa weeye reermoodin waxa uu ku tiqtiqsaday in dalkiisa ay u kaceen da'yar xeelerayaal kuwaas oo maskaxdooda dhan u toojinaya sidii ay dowladda iyo waliba dalweynaha uga saari lahaayeen baahi kasta oo ay uga baahdaan wadamada reer galbeedka ama ay u noqdaan kuwo cudurada u sii hada. tani waxay ka dhigan tahay kor xoog leh waxaana rajeynayaa inaan kordhin doono waxtarka awoodda hawada sare ee dagaalka cirka iyo ka dhulka badda iyo mid kasta oo aan waddankana ku difaaci doono ayuu laga soo xigtay sarkaalada Sufama Sanayi oo isaguna ah ku-xigeenka Mr. Damari. waxaa la sheegay in diyaaradan Mareykanku markii hore lahaa la casriyeed doono iyadoo kor loo qaadi doono kordhinta saacadaha faraha badan ee dulmaadkeeda oo kolkii hore xawaar ahaan iyo saacad ahaanba qaadanayay 8,000 oo saacadood balse hadda waxaa laga dhigay ilaa 12,000 oo saacadood taasoo ka dhigan in matoorada diyaaradda inta mayl ay jiitamayaan iyo intay dulqaad u leeyihiin la sii badi doono. waxaa taa ka sii daran in la sheegay in fikrad cusub laga haysto sidii loo soo saari lahaa diyaarado u dhigma speed ahaan xawri ahaan iyo ka baxsashada waxa loo yaqaan radarka ama inay u gambiyaan oo isjaraan gantaalada halista badan gabi ahaanna la baratama bali diyaaradaha F-35 ee dalka Mareykanka iyagana dhawaan dah laga qaadi doono. waxaa kaloo la sheegay inay tani tahay jawaab culus oo degdeg ah oo timid kadib guushii Akanji waxay ahayd mataantii labaad ee shirkadda Baker oo iyaduna kaba casrisan kana cawaantisan. Akanji waxay ahayd fariin ay dirtay dowladda dalka Turkiga sanadkii 2021 waxayna ahayd mid kale oo ay ku biirisay awoodda gacan sareynta ciidankeeda cirka iyo waliba inay diyaaradahaasi ay sameeyaan wax loogu yeeray saacado aad u badan iyadoo cid wadin in hawada ku jirto iyo inaysan baytarigeedu dhaqdhaqaaqin ama aysan ka dhicin. Turkigu waxa uu doonayaa inuu la falgalo wadamada quwada
turkigu wuxuu leeyahay saddex mabda oo kala sareeya oo la kaba ta koobaad madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu doonayaa in boqol guurada jamhuuriyadda casriga ah ee Turkiga uu ka saaro gabi ahaanba heshiisyadii dalkaasi lagu maxalalay qoortana lagaga xiray kaasoo loo arko inuu laf dhuunkatay wadanka ku noqday gaar ahaan in ay jeexaan gacanka weyn ee kanaalka ah ee loo yaqaan Istanbul iyo sidoo kale heshiisyada la isku weegaaray ee Lusani gaar ahaan badda Mediterranean-ka iyo kheyraadka fadhiya talabaad oo ah in wadanku gabi ahaanba uu ka hoos baxo ku tiirsanaanta gaashaandhig ee wadamada reer galbeedka iyadoo wadanku uu si guud uga gabangaabsaday dhammaanna ugu barmoosay soo saarista baabuurta gawaadhida kala duwan qoryaha rasaasta sameeshadooda qaar ka mid ah gantaalaha oo qaarkood ay plastic missiles yihiin diyaaradahan ciidan oo hodan ka noqday doonyo dheereeya maraakiib dagaal oo cajiib ah balse weli dowladda dalka Turkiga waxay u maaran lahayd inay hesho diyaaradaha qumaatiga u kacay labada baylood ee wadaan kuwaasoo ayagu goobtii ay doonaba duqeey kara isla markaana si nabada ku soo caga dhiga kara maraakiibta dushooda iyo waliba garoomada ay diyaaradahu ka hada saddexaad ayaa in wadanku dhaqaale ahaan uu madax banaanaado madaxweynaha dalka Turkiga wuxuu dagaal aad u baan kula jiraa mabaadi'da ku dhisan lacagta dulsaarka loo yaqaan ribada ama interest rate waxa uu doonayay gabi ahaanba inuu wadanka ka saaro nidaamka dhaqaalaha reer galbeedka isla markaana uu hoos u dhigo ku tiirsanaanta lacagta dulsaarka ee dawladdu isticmaasho una kala saaro gabi ahaanba waxa loo yaqaan lacag lagu dulisayo iyo lacag la maalgashanayo wuxuu aaminsan yahay in ay noqoto gabi ahaanba nidaamka dhaqaalaha wadanku ta islaamku uu qabo iyo kobcinta dhaqaalaha waxaana uu dhowr jeer xitaa sheegay in wadamo waaweyn oo Mareykanku ka mid yahay ee mabda ahaan ay qaateen qaabka dhaqaalaha ee islaamka qaybahan oo ay ku shaqeeyaan gaar ahaan marka ay noqoto habka wax loo kala deensado iyo sidoo kale habka lacagta loo kaydsado saving saddexdaasi mabda ayaa u ah markaasi Mr Erdogan waxa loo yaqaan halbeegiisa aan libiqsanaynin ee dhinaca horumarada uu doonayay inuu ka suubiyo taas Turkiga waxyaalaha ku dhaliyay inay isku tashi la yaab leh sameeyaan waxa kamid ah kadib markii xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadigu ay bishii Luulyo ee sanadkan ay meel mariyeen hindise kale oo sii adkeenaya isla markaana sii dhibaya rabitaanka Erdogan ee iibsiga diyaaradaha F-16 iyo in ay gabi ahaan wax ka bedeleen nidaamka difaaca ee dalka Mareykanka oo adkeenaya gabi ahaan suurtagalnimada madaxweyne Joe Biden u noqon kareysay in uu siiyo baahida diyaaradeed ee Erdogan uu rabo waxaana ay markaasi taas keentay in ku dhawaad 250 xildhibaan oo Mareykan ay u codeeyaan in shuruudo aad u adag lagu xiro madaxweyne Erdogan shuruudaha la yaab kale ee dawladda dalkaasi Turkiga ku dhaliyay inay isku tashi ay u dhaqaaqaan dadka wax bartay ee tiknoolajiyada ku horumaray saynis yahanadeeda iyo khubarada kale waxa weeye waatan waxa kamid ah shuruudaha Gurfad Media waliba ana xaashi aan arkay inay ku jirto sida waxaa reeban in dalka Turkigu uu isticmaalo diyaaradaheena dagaal kasta oo ka dhana xulufada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO taa macnaheedu waxa weeye dalka kaliya gaashaanbuurta NATO ku jiray sida weyn isugu dhici karaan dalka Turkiga waa wadanka Greece oo ay si weyn isugu hayaan wax walba taas haddii saa loo fasiro oo ay tahay dalka isdishaan ee Greek oo kale uma isticmaali kartid una adeegsan kartid diyaaradahaasi dagaalka maxaad ku falasaa marka waa isweydiimahaas iyo kuwa kale ay dawladda iyo waliba xubnaha khubarada ah ay ka gilgisheen isla markaana ay ka diyaar garoobeen haatan Turkigu wuxuu noqon doonaa laba arrimood mid uun kow inuu noqdo wadan si ahaado maxmiyad isla markaana haddii ay taladiisu isbedesho gaar ahaan xisbiga jamhuuriga loo yaqaano isagu u janjeeray dhinaca reer galbeedka inuu wadanka dib u celiyo iyo inay ku socdaan isbedelada degdega ah ee Erdogan uu la damacsan yahay oo ah gabi ahaanba in laga hoos baxo ku tiirsanaanta dhan walba ah ee reer galbeedka waana taata ay qarka u saaran yihiin iyadoo la sheegay in da'yarta wadankaasi ay aad u fahansan yihiin lana jacsan yihiin siyaasadda Recep Tayyip Erdogan